danjiraha cusub ee Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shirka hay'adda caalamiga ah ee solarka adduunka ISA kadib shirkaas waxaa Soomaaliya ay ku guuleysatay kursiga gudoomiye ku-xigeenka guddiga sharciga hay'adda caalamiga ah ee solarka adduunka waxaana horey gudoomiye uga ahaa xubin ka tirsan hay'ad laga leeyahay dalka Australia kulan ay yeesheen agaasimaha guud ee hay'adda ISA Ubendra Dreyford iyo safiirka Soomaaliya ee India Marwo Faadumo Cabdullaahi ayaa waxaa looga hadlay sidii looga faa'iideysan lahaa tamarta cadceedda ee Soomaaliya. Hay'adda ISA ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka sameyn doonto mashruuc looga faa'iideysanayo keedka qoraxda kadibna loo bedelayo hab koronto ah iyo tababaro loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii madaxda hay'adda ISA ayaa kulan waxay la qaateen safiirada caalamka ee shirkaas ka qayb galaya iyagoo ka wada hadlay arrimo badan. danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhida dalka Hindiya Marwo Faadumo Cabdullaahi Maxamuud ayaa dhawaan waxay waday booqashooyin ay ku tageyso xarumaha dawladda Hindiya hay'adaha caalamiga ee degan wadankaasi iyo safaaradaha ay Soomaaliya xiriirka dawla leeyihiin sida kuwa Afrika, Carabta iyo dawlado kale ee caalamka. Ujeedada booqashooyinkeedana waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa xiriirka ka dhaxeeya wadamadaas iyo Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Cabbaas Xuseen, Dalka TV.